maanta oo bishu 4 September 2022 waxaa noo suurtagalay wasaaradda duulista hawada oo wasiirka aniga iyo agaasimaha guudmaax iyo agaasimaha aviationka mooto iyo teamkii airportka ka howlgalaya Boosaaso iyadoo maalmahan 3 maalmood safar shaqo ku joognay Boosaaso oo shaqooyin kala duwan airport ka wadnay laakiin waxaa maanta noo suurtagalay kormeer laba arrimood daarana tayada shaqo ee airportka ka jirta iyo shaqooyinkii uu hayay inaanu dib u qiimeyn iyo kurgal oo wax u kormeero wax u kormeero oo qaybihiisa kala duwan oo dhani aanu maaragtay soo kormeeray iyo u kurgal mashruucii airportka Boosaaso oo gabagaba maraya qabku u qabsoomay iyo shaqooyinkiisu inta yara ka dhiman iyo dib u qiimeyn inta mashruuca maaragtay lala wareegin xaaladiisu waxay ku sugan tahay runtii waa niyad badan bay noo tahay 3 sano iyo barkii 3 sano isteed bilood ay dawladdan Dr. Cabdullaahi Dani joogtay wasaaradana aanu madaxda ka ahayn inay airportkan iyo airportada kale oo badan ay wax badan u qabsadeen wali airportkan Boosaaso wax weyn ka qabsadeen waxa kale oo yana kulanku maanta isna maaragtay nationalka fursad ay u ahayd agaasimaha guud maax oo cusub oo isaga laftigiisu maaragtay inuu xog badan iyo xogaalnimo iyo maaragtay aragti intaba insha Allah ka qaato airportka runtii waa ku mahadinaynaa shaqaalaha kala duwan iyo madaxdaba airportka iyo company-ga gacanta ku haya intaba company-gu wuxuu ku soo kordhiyay shaqo weyn oo la taaban karo laakiin shaqadu wali wadaday haysataa waxa hadda dhamaaday runway-gii waxa dhamaaday wadadii airportka soo galaysay oo 2 kilometer bixid iyo galid ah waxa dhamaaday hangarkii koowaad ee la dhisayay waxa dhamaaday fencing-kii waxa dhamaaday parking-kii airportka insha Allah bishan gudaheeda waa la sii gabagabayn doonaa dib u qiimeyn mashruucu maaragtay oo safarkaygan ku jirayna waxyaabaha nooga soo baxay dhamaystirkooda waa abiyi doonaa waxa kale oo aanu gogal xaaraynaa in mashruuca kan sidii maaragtay daaha looga furi lahaa oo madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdullaahi Dani uu maaragtay xariga uga jari lahaa waxa kale oo September gudaheeda insha Allah aakhirkeeda aan rabnaa in ama dhexdeeda in yana la dhagax dhigo facekii saddexaad ee airportka oo ka koobnaan doona terminal cusub terminal cargo-gi terminalkii maaragtay qaybta dibdamiska iyo tower airportkii oo tower casri airportku yeesho iyo hotel weyn oo 5 stars ah iyo dhammaan wixii kale adeegyo casri ah airportku u baahnaan lahaa oo dhan airportku waxyaabaha hadda ay company ku soo kordhiyeen waxa kale oo ku soo kordhay oo horay ugu soo kordhinay xarunta labaad ee hawada Soomaaliya laga maamulo oo overcharge-ka waliba Soomaaliya ay awood u yeelan doonto badda cas iyo badda labada badood ee India inay wixii diyaarad maray charge-kooda ay ka qaadato oo qalabka hadda dhamaan doona diyaaraddu iyadoo oo India fadhida pilotku uu maaragtay macluumaadkiisa soo gudbin doono waxa kale oo yana ku soo kordhay qaybta saadaasha hawada oo si casri ah yana loo taabageliyay insha Allah taala qalabo badan iyo shaqooyin badan oo kala hadda solar system casri ah yana ku soo kordhay oo hadda beddelkeeda korontadii magaalada airportka lagu soo biiriyay oo maaragtay 24 hours ka ahayd baa yana joogta waa xagga gaadiidka 5 gaadiid oo cusub baa ku soo biiray laba ay dibdamisyo waaweyn oo 8x8 ay yihiin shaqaale casri ah loo tababaray waxa kale oo ku jira gaariga volume diyaaradaha horkaca ambulance ee loogu talagalay hadii dad xanuunsan la qaaday hadii diyaarada ku soo xanuunsado gargaarka degdeg ah loogu sameeyo iyo gaari kale oo shaqaaluhu ay guud ahaan ku adeegtaan waxa aad loo tayeeyay shaqada airportka iyo servicekeeda waxaan ku soo kordhinay Ethiopia Airline oo aad ogtiin hadda in maaragtay ay airportka maantadan aynu joogno ay ka dhoofayaan oo dadka dunida ay ka imaanayaan waxa kale oo aanu gobolka Bari iyadoo guud ahaan Puntland u ballan qaadayno flights yar oo isku xiran laakiin gobolka Bari oo gobol aad u weyn waxaan si gaar ah ugu ballan qaadi doonaa in Boosaaso laga helo caluula waa bilaabayna insha Allah wiilka soo socday bilaami doonta xaafuun waa ku tala jiraa waxaanu qiimeyn doonaa airportada yaryar ee magaalooyinka waxayna ku cilmi doonaan customer-ka meeshii customer aadi kara leh oo 12 qof loo helo flight ama 10 qof aadi kara in flight loo helo joogto ah oo waliba wiilkii mar horta lagu bilaabo
insha allahu dal horumarkii waa infrastructure-ka airportku waxyaabaha waaweyn ee dhaqaalaha dhaliya magaaladan Boosaaso waa magaalo ganacsi waa magaalo 1 milyan ama 800,000 oo dadii ku nool yihiin waa magaalo dhaqaale marka waxay u baahan tahay in dunida si casri ah qaybta cargo-ga waxa kaloo aan ka tagay waxa la dhisayaa jad kalluumaysiga baa hadda la bilaabaya airportka gudihiisa si kalluunku meesha uga dhoofi doono waxa kaloo yana laga dhisi doonaa laba warshadood oo mid hilibka ah iyo mid kalluunka ah si cargo badan meesha uga dhoofi doono insha Allah taala si casriyana airportku insha Allah taala waa u kori doonaa laakiin waxaan u baahanahay dadkeenu inay fursada buuxiyaan oo haddii adeegyada loo sameeyay oo dadka safarkoodu yaraado waa dhib ay noqon doontaa marka dadku inay aad uga faa'iideystaan oo maaragtay fursadahaas waliba waxaan aad ugu dadaali doonaa qiimayaasha gudaha looga kala dhoofi doonaa in aad u jabnaadaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh